Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Maanta waxaan ka hadli doonaa qisooyinka ku saabsan filimada Hindiyada. Gaar ahaan waxaan eegi doonaa filmo soo bixi doono insha Allah sanadkan dabyaqadiisa. Waxaana marka waxaan jeclaan lahay inaad kusoo dhawaataan aad ila dhegeysataan filimkan. waxaa jiraya gabar loo yaqaano Sara Ali Khan oo reer Delhi ah. waxay soo jiidatay ama adduunka caalamka ay kasoo jiidataba fashionka kadib suuqada Delhi oo ku yaalo wadanka Hindi ay dhex mushaaxisay maalmahan. gabadhan aad u jeedaan waxaa la yiraahdaa Sara. sida aad kusoo qaadanaba hadda aan soo sheegay inay maalmahan dhex mushaaxisay Delhi oo ka tirsan Hindiya. Sara Ali Khan marka wax ka taabto waa mid ka mid ah atrishooyinka Bollywoodka sanadkan sida weyn looga wada sugayo, maadaama dhammaadka sanadkan ay kusoo caan bixi doonto filim loo yaqaano Simba hadduu Ilaahay idmo sanadkan dabyaqadiisa. insha Allah waa soo qaadan doonaa. Sara waxaa waalidiinteedii u ah xidiga ah ama kala ah Saif Ali Khan iyo Amirti Sai. waana gabar ay saxaafadda si weyn u jecel yihiin marka aad ka eegto labada dhinacba. mar walbana sawir qaadayaasha ama kuwa kaamirayaasha qaado ay sawirada kasoo qaadaan ay aad u jecel yihiin sawiro badan ay ka qaadaan, balse aan ay jecel yihiin dadka bulshada ay ku nool Delhi ee ka tirsan wadanka Hindiya. haddaba atriishadan ayaa la arkay iyadoo Delhi ku sugan kabacdi ay ka iibsanaysa shopping ay ka sameysanaysa. waxaan horay idinku sheegay in ay halkaasi markii ay aadaysay fashionkeeda markay dhamaysatay sarana suuqyada Delhi ay mushaaxisay shoppingkeeda ay dhamaysatay suuqyadii Delhi ku dhex yaalay wadanka Hindiya ay dhex mushaaxisay ama ay dhex mareysay. si aad u taqaanideen hadda aad tihiin Soomaali waad u jeedaan waxaa ku qoran Delhi Hat ama Changpuri. waa suuqyada ku yaala wadanka Hindiya, gaar ahaan gobolada kamid ah Delhi. waa ujeedin kabaha qurux badan, gabadhan aad u qurux badan oo iyadana sanadadan kusoo biirtay oo loo yaqaano Sara. ujeedin waxay ka iibsanaysaa kabaha. haddii aan kasii socono Sara waxay weli ku howl jirtaa duubista filimada kale ah ama ka daran tahay oo la daawan doono sanadka dambe insha Allah 2019. insha Allah sanadkan markuu dhamaado 2018 dabyaqadeeda 2019 filimkan soo bixi doonaa. waxaana atooro ka ah nin loo yaqaano Rajput ay atooro ka yahay, iyo waliba Simba oo Ranveer Singh asina atooro uu ka yahay. horta filim gudaantiisa magaciisa waxaa la Simba. laba nin ay atooro ka ah, Rajput oo atooro ka ah iyo Ranveer Singh sidoo kale atooro uu ka yahay. sanadkan dhamaadkiisa la daawan doono. waase u taqaano atooro iyo laadir. Rajput ay atooro ka ah, Ranveer Singh wuxuuna ka yahay atooro xubin ama sa u taqaaneenba laadirka sida Soomaalida inta badan ay adeegsadaan ereyada kala duwanaanshaha marka loo eego Soomaalida. Sara iyo sidoo kale John Harvey waxaa soo caan bixinayaa kara John. waana sheyga ay ka siman yihiin atrishooyin waliba hal sano gudaheed ayay fanka soo galeen. waana arki doontaa mid saameyn badan ku yeelan doonto sanadkan ayaa la ogaa doonaa.
sidaan kusoo sheegay gabadha loo yaqaano saaraha oo inta badan dharka kasoo iibsatay wadanka Delhi ama Delhi ee ka tirsan gobolka Delhi ama wadan ka tirsan Hindiya. waa arkayseen kabaha quruxda badan gabadha siday u qurux badan tahay ujeediyeen saddexdooda waa atoorayaashii aan kusoo sheegay Raj Ponti atoora iyo atoor ku-xigeenka ujeediyeen waa gabadha filimada kusoo biirtay magaceeda waxaa la yidhahdaa Saara. insha Allah 2018 dabyaaqadeeda markay dhamaato 2019 hadda waxaa ku socoto duubis insha Allah waxaa hoos idinku reebi doonaa ama kilibka hoos idinku reebi doonaa insha Allah filimka xoogaa goos ah laga sameeyay ama Simbi Johnny Pingis oo ah beginner oo bilow ah waad arki doontiin insha Allah asxaabta waa idin jeclahay please fadlan please subscribe ka lagu dadaalo hala saar YouTube-ka insha Allah waad mahadsantihiin. 3-star police inspector संग्राम भालेराव जो दे तो त्रास त्याचा मी घेतो क्लास. पागल हो गया फिल्म का डायलॉग क्यों बोल रहा है यार? अरे सर वो करण ने हाँ सिंघम 3 चा सेट आहे आइला अमृता सिंह. All that madness and more. 28 December at a theatre near you. Simba.